وهجاج أحمدو ciidanka culus ku biiray maantay ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen madaxweynihii hore ee lagu itaaloonaday gacan ku haynta deegaanada Koonfur Galbeed ee muddooyinka ugu dambeeyay saaxiibadiis iyo ciidamaduba ay ku sugnaayeen deegaanka Ceeldoon ee duleedka magaalada Baydhabo waxaa maanta ku biiray ciidamo hor leh oo gaadiid wata askar xoogan ah kuwaas oo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kamid ahaa ciidamada uu dhisay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ciidamadani waxay ka soo ambabaxeen magaalada Dinsor waxayna gaareen duleedka magaalada Baydhabo waxayna sheegeen sababta halkaas ay u tageen inay tahay inay ka qayb galaan halganka culus ee lagu wajahayo maamulka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ee halkaasi ay geysay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyada waqtigeeda oo xilliga ka yahay gabadha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen oo ay ku biireen ciidamo cusub oo meelo kala duwan ka yimid. barnaamijka ayaa ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan niman mas'uuliyiin oo ka tirsan Koonfur Galbeed oo digniin u diray Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo ah hoggaanka cusub ee Koonfur Galbeed sababtu maxay tahay barnaamijka xulashada wararka ayaan idinku haynaa sidoo kale waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxaa ku biiray ciidamo cusub oo hor leh kuwaasi oo meelo kala duwan ka yimid ciidankan ayaa si weyn waxaa lagu soo dhaweeyay duleedka magaalada Baydhabo iyadoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen saraakiil iyo waliba wasiirka hore ee amniga ee dhinaca Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen iyo sidoo kale afhayeenka madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidamadan ayaa waxaa la sheegayaa inay yihiin ciidamo ka soo goostay dhinaca Aadan Madoobe oo ku biiray ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen iyo waliba ciidanka dib u xoreynta Koonfur Galbeed kuwaasi oo hadda ku sugan fariisimaha ay ku leeyihiin duleedka magaalada Baydhabo waxaa hadda si toos ah qadka telefoonka ugu jira Cabdi Jamaal oo la socday wararkii ugu dambeeyay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hadda xaaladdu sida ay tahay. وهجاج أحمدو ciidanka culus ku biiray maantay ciidanka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen madaxweynihii hore ee lagu itaaloonaday gacan ku haynta deegaanada Koonfur Galbeed ee muddooyinka ugu dambeeyay saaxiibadiis iyo ciidamaduba ay ku sugnaayeen deegaanka Ceeldoon ee duleedka magaalada Baydhabo waxaa maanta ku biiray ciidamo hor leh oo gaadiid wata askar xoogan ah kuwaas oo ka tirsan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kamid ahaa ciidamada uu dhisay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ciidamadani waxay ka soo ambabaxeen magaalada Dinsor waxayna gaareen duleedka magaalada Baydhabo waxayna sheegeen sababta halkaas ay u tageen inay tahay inay ka qayb galaan halganka culus ee lagu wajahayo maamulka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ee halkaasi ay geysay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyada waqtigeeda oo xilliga ka yahay gabaabsi waxay sidoo kale arrintani ku soo aadaysaa xilli burha kaba ninka lagu magacaabo Leysaan oo ku dhawaaqay oo Facebookiisa uu soo dhigay haddii sida lagu wado aan laga dayn Koonfur Galbeed inuu qaadayo tallaabo adag taasoo loo fasiran karo inuu ku biiri doono maalmaha soo socda ciidamada iyo saraakiisha iyo hogaamiyaasha kala duwan ee wasiiradu kamid yihiin ku sugan Baydhabo duleedkeeda weli aan ku qanacsanayn habka loo wajahayo Koonfur Galbeed iyo hawsheeda waayahay ciidamadan cusub ee ku biiray Laftigreen tiradooda ma ognahay iyo gaadiidka ay wataan nooca uu yahay tirada askarta cidna ma xaqiijin oo ma sheegin numberkooda laakiin waa askar saaran ilaa 3 baabuur oo Cabdibila ugu yaraan ayay wataan gaadiid kale oo la soo bandhigaya jira la yiri laakiin technicada ilaa 3 baabuur in ka badan ayay wataan waayahay arrintan maxay uga dhigan tahay Aadan Madoobe oo dhowr maalin ka hor uu loo dhaariyay xilka hoggaanka Koonfur Galbeed in ciidamadii Koonfur Galbeed maalin walba ay goosanayaan waxay uga dhigan tahay wajigabax waxay uga dhigan tahay arrin la yaab leh waxay uga dhigan tahay arrin ku noqotay wuxuu sifilayn hogaaminta deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay muujinaysaa capacity-giisa iyo quusta ay ka joogaan dadka reer Koonfur Galbeed inuusan weli Sheekh Aadan Madoobe u gaarsiisnayn heerkii ay filayeen wala socotay maalintii koobaad ee halkaas Laftigreen laga saaray dadku aad ayay u soo dhaweynayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamadeeda iyo hoggaanka xilligaas waday laakiin sida muuqata markii ay xaqiijiyeen in Sheekh Aadan Madoobe uu noqday qofta ay u xushay dowladda federaalka ee Soomaaliya
waxaa bilowday culays aan dhammaan lahayn kaasoo u muuqda mid maalin ka dambaysa si weyn deegaanka sida ay u sii wiiqmayo rabitaankii maamulka dawliga ahi ay soo muuqanaysay. waayahay waxaad sheegtay mid ka mid ah mas-uuliyiinta dhinaca ciidamada in uu ka hadlay arrimaha ka taagan koonfur galbeed. muxuu sida wax loo wado muxuu ka wadaa mas-uulkaasi hadlay, maxayse ka dhigan tahay inuu xilligan hadalkiisa uu ku soo beego? isagu toos uga mid ahan ciidamada, laakiin waa gudoomiyaha Buurhakaba. sida ogtahay Buurhakaba iyo Waajid iyo waxay ka mid ahaayeen goobaha ay ugu muhiimsanaa Laftigreen jabintii lagu sameeyay door way ka qaatay, la'aantoodna ay suurto gasheen in lagala wareego deegaankiisa. waayo ciidamadii oo halkaas ku ogaa ayaa dabarjibinta ku sameeyay. marka waxa hadlaya waa gudoomiye oo dhan. gudoomiye marka maxaa xilligan muxuu qoonsaday gudoomiyaha marka muxuu qoonsaday maxaa keenay inuu xilligan hadlo? maalmaha dambe waxaa jirtay eedeymo kulay soo tarayay oo ku aadan Waajid iyo Buurhakaba inay aad uga jimbadeen habka loo maamulayo iyo jabooyinka oo Sheekh Aadan Madoobe la ogaaday iyo cidda wasiirada u wado iyo cidda wasiir ku-xigeenada u wado. marka waxaad moodaa hadda inay bilaabatay dowlad siyaasadeed oo jaha walba ka soo galaysa Sheekh Aadan Madoobe. siyaasiyiintuna mid walba uu doonayo halka uu joogo inuu ismuujiyo, haddii aysan jirin in laga warqabina oo isbaro hogaankii cusbaa, haddii kalena uu yahay nin shaqadiisa haysta. marka waxa la dareemayaa inay jirto cugdad weyn oo dhinaca siyaasadda ay ka qabaan habka uu u maamulayo maamulada iyo taliyaasha gacanta ku haya Waajid iyo Buurhakaba. waa gartay marka ma waxay u eg tahay in markii horeba aysan markii ku qanacsanayn Laftagreen oo ay dib ku qabeen, hase ahaatee Aadan Madoobe taageereen haddana uu ka daray oo ay noqotay xaajadu kudka guur oo qanjow guur? xaaladdu dhowr waji ayay leedahay. wajiga koowaad horta maamulkana waa kii la shaqeynaya Laftagreen, laakiin kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya meeshii soo gashay Laftagreen la ogaaday inuusan jaha u wadin maamulka koonfur galbeed. waxay ka mid ahaayeen mas-uuliyiintii sida weyn u istaagtay oo dowladdii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii xilligaas dadaalka waday ku garab istaagay in koonfur galbeed laga badbaadiyo halkii uu waday Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. taasina waxay u muuqatay in xilligan aysan abaalgudkeedii aysan helin. taasina ay keenayso maalinba inay soo hadlaan oo sheegaan inaysan ku qanacsanayn siday wax u socdaan. marka gudoomiyuhu siduu filayo kulley ayuu ka waayay maamulka. taasina waxay keenaysaa waayahan dambe ciddii weysaa waxa ay rabto wixii aadaysa duleedka Baydhabo. marka ma garan doono inuu duleedka Baydhabo ay doono in Sheekh Aadan Madoobe xal degdeg la imaan doono, laakiin xaaladda Buurhakabana ma wanaagsana. Waajidna waa dowladda waa tahay